kuwani waa kooxda Bambeyda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa ay qabtaan shaqo aan ahayn midda ay qabtaan ciidamada kale ma jirto cid si sax u sheegi karta sanadkii la aasaasay laakiin qiyaasaha badankood waxa ay sheegayaan in kooxdan la isu keenay bilowgii afartameeyadii macallimiintii markaa joogtay waxa ka mid ahaa nin dhintay Allah u naxariistay General Cabdi Kaaye Faarax harag shabeel loo yaqaano iyo gaashaale adow arwaax jamcaale oo macallinkii muusiga ee Soomaaliya ah taasoo dalka markii uu dawladdu yeeshay madaxweyne aadan cabdulla cusmaan labada band muusiga laba qaybood ay u qaybsanayd laba qaybood qayb Hargeysa iyo qayb Muqdisho labada qaybood qaybta Muqdisho waxa macallin u ahaa nin Talyaani arkow ah ayaa u ah qaybta waqooyi nin Ingiriis ah oo la dhigi jiray Beat Flag ayaa u ah isku darkeeda waxa sabab u ahaa dawladda aadan cabdulla cusmaan labada baando in la isku daro labada baando waxa la kaliya faanfaara ayaa la dhigi jiray faandada jirtay Hargeysa isku darkeeda waxa sabab u ahaa xukuumadda aadan cabdulla cusmaan qof kasta kama mid noqon karo kooxda Bambeyda waxa jirta xulashooyin lagu doorto qofka ka mid noqonaya kooxda haddaba maxay yihiin shuruudahaasi kooxda band musical qofka markuu nin muwaadin u yahay oo Soomaali u yahay waan ku xulanaa waxaan kale intuu aan fiirina waxa jiro yani mataqaana qofku bishimidiisa waa la fiiriyaa ilkaha kaleento qof oo yani hadii xoogo kor iyo hoos fanaxay ay kala yihiin waxa dhibaysa baasha afuuftaankeeda aaridiisa beertooyso way baashan aaridaas ay qofka ku xisaabtamaa aarida ka bixayso ayuu ku xisaabtamaya hadii dad waxyaabo badan oo mataqaana qofka aan macna lagu qaadi karin way jirta gaabnaan qofka lagu manaco dhirir lagu manaco kaliya hawsha kooxdu waxay tahay salaansiinta madaxda dawlad-tusyada ciidamada ay sameynayaan marka ay dhacayaan munaasabadaha qaranka ee dalka rag iyo dumar ay isugu jiraan askarta ka midka ah kooxda Bambey Music Saadiyo Carabow Maxamed ayaa ka mid ah waxaana weydiiyay sababaha ay ku dooratay inay ka mid noqoto kooxda Banda Music ee booliska Soomaaliya wali waan jeclaa inaan ka tirsanaado kooxda Banda Music haddii ay suurto gashay inaan noqdo kooxda Banda Music booliska Soomaaliyeed inta cimriga inta ka dhigna waxa jeclaa inaan si ahaado kooxda Banda Music waxaad qabilsantahay marka aad shaqada kooxda Banda Music waxaan qabilsanahay ku shaqada Mansieri oo hagayso ciidanka su'aasha jawaabta u baahan waxa ay tahay sidee ay u soo saaraan dhawaqa astaamaha qaranka iyo muusikada heesaha kala duwan ee ay kooxdu garaacdo maya hadii ay dhacdo in xoog wax ay halaabaan waxa hoggaanka haayo ninka u shaxaya hadii qaladka uu zaid oo noqdo qaab baajiro oo laga baxo nidaam laga baxo ayaa jirto oo muusikada inuu isku gooyo danaamkii lixo wadanaya hadii oo mataqaana yani waxa saxda ah baashar ayada ninka yaqaatumayo iska qawma waa inuu horta muusikada yaqaan micnaha muusikada qaladka ninka intaana qofada meesha soo fadhiisto 100 qofood meesha soo fadhiisto waxa loo baahan ninka hal xabaq qaldi inuu ka dareemi karo kooxda oo dhig karo ninkaas wax qaldi marka baashan ayada marka ayaa wax lagu saxaa waxa wax lagu saxaa ninkan si yaaleenayo wuu isku gooynaya mid kale oo dalbanaya Cabdicasiis Ibrahim Ahmed TV-ga Universal magaalada Muqdisho